bismillaahi raxmaani raxiim warbaad joogtaan ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn wararka caalamka waxaana kamid ah daawadayaal hogaanka sare ee dagaalamayaasha al-shabaab oo u kala jabay laba qabiil iyo xaalad dagaal oo ka taagan deegaanada shabaabku ay haystaan axmed madoobe wada abaabulkii u dambeeyay Jubbaland ay ku qabsanaysa Bu'aale al-shabaab oo diliyo goorac u geystay mas'uuliyiin kamid ah magaalada Baardheere Mareykanka oo wax laga xumaado ku tilmaamay ciidamada dawladdu ay geysay gobolka Gado ciidamada Soomaaliland iyo Puntland oo maanta dagaal ba'an ku dhex maraya gobolka Sanaag iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida oo xukun adag ku riday xubno ka tirsan al-shabaab haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawaday subscribe channelkan si aad u hesho wax kasta oo channelka soo gelino taariikhdu waxa ay tahay 25 bisha 2 Febraayo sanadka 2020 intaad maqasheen iyo qodobo kale ku soo dhawaada saaxiibayaal hagaag waxaa sii ballaaranaya khilaafka ka dhaxeeya kooxda al-shabaab kadib markii la ciiriyay laba hogaamiye oo ka kala tirsanaa madaxda kooxda waxaa sidaasi warisay wargeyska Daily Nation ee Nairobi ka soo baxa wargeyska ayaa sheegay in warbixino sirdoon ay sheegayaan in hogaamiyaasha kooxda ay u kala jabeen saf qabiil kadib markii la isku qabtay qaybsiga kheyraadka warbixinta ayaa sidoo kale sheegtay in hogaamiyaha al-shabaab Axmed Diiri Abu Ubayda uu xanuunsanaya isla markaana uu xilalkii ka qaaday Bashiir Qoorgaab iyo Mahad Karatay xogtan ayaa waxa sidoo kale hore u sheegtay bishii aan soo dhaafnay dhamaadkeedii hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qarankeennisa waxaa kaloo la isku qabsaday dhaqaale kamid ah canshuurta kooxdan soo gasha waxaana jira in madaxda qaar ay ka caroodeen sida beelaha qaar loola dhaqmo waxaa sidaas yiri qof laga soo xigtay xogtan kana mid ah saraakiisha al-shabaab xubnaha careysan ayaa la sheegay inaysan ku qanacsaneen sida hogaanka al-shabaab uu canshuuro isla markaana ula dhaqmo ganacsatada beeshooda wargeyska ayaa sheegay in taliye sare oo ka tirsan al-shabaab uu aasaasay koox fallaaga ah al-shabaab si uu la dagaalamo caburinta lagu hayo beeshiisa waxaana shakhsigaas lagu sheegay inuu yahay Mahad Karatay madaxii amniyaadka al-shabaab sanadii tagta 2019 Zubayr al-Muhaajiri ayaa ka goostay kooxda al-shabaab isagoo sheegay inay hareer mareen islaamka iyo quraanka kooxda al-shabaab wali kama aysan hadal khilaafkan la sheegay inuu ka dhex jiro hogaanka kooxdan hagaag markaana Jubbaland Axmed Madoobe madaxweynaha Jubbaland oo dawladda Soomaaliya khilaaf ka dhaxeeya ayaa wada abaabulkii ugu dambeeyay Jubbaland ay ku qabsanaysa magaalada Bu'aale ee caasimadda gobolka Jubbada Dhexe madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo xalay ku hoyday dhowr bil kadib degmada Dooble ee gobolka Jubbada Hoose ayaa la kulmay saraakiisha ciidamada ee ku sugan halkaasi kulanku ahaa mid xasaasi ah ayaa waxa looga hadlay dagaalka ka dhanka al-shabaab gaar ahaan dhaqdhaqaaqyada ciidan ee ka socda gobolada Jubbooyinka ila ku dhow kulankaasi ayaa sheegay in diiradda lagu saaray sidii loo qaban lahaa degmada Bu'aale oo ah caasimadda Jubbaland taas oo ay gacanta ugu jirto al-shabaab sidoo kale wararka ayaa inta ku daray in Axmed Madoobe saacadaha soo socda uu kormeeri doono xarumaha ay ku sugan yihiin askarta Jubbaland si uu qiimeeyo xaaladooda guud Jubbaland ayaa maalmihii u dambeysay xoojisay dhaqdhaqaaqyada ciidan ay ka wada gobolada Jubbooyinka oo uu culeyska ugu badan uu ka haysta maamulkaasi abaabulku hadda wada madaxweyne Axmed Madoobe ayaa ku soo aadayay iyadoo muddooyinkii dambe dhaqdhaqaaqyo military ay ka socdeen deegaanada Jubbaland wali waxaan ku guda jirnaa wararkii Jubbaland markaana gobolka Gado xubno ka tirsan al-shabaab ayaa diliyo goorac u geystay mas'uuliyiin ka tirsan magaalada Baardheere wararka naga soo gaaraya gobolka Gado ayaa sheegay in saacadihii la soo dhaafay dagaalyahanada ka tirsan xarakada al-shabaab dilal qorsheysan ay ka geysteen gudaha degmada Baardheere ee gobolkaasi dagaalyahanada ka tirsan al-shabaab ayaa la sheegay inay gudaha u galeen xalay qaybo kamid ah magaalada Baardheere iyagoona guryahoodii kala baxay ilaa 3 gudoomiye laameed oo ka tirsanaa mas'uuliyiinta maamulka degmadaasi wararka qaayday ee sheegay in rag hubaysan oo ka tirsan al-shabaab ay markii dambe ay toogasho ku dileen laba kamid ah gudoomiyaasha halka midka saddexaadna ay gooriceen sida ay noo xaqiijiyeen ila deegaanka oo lagu kalsoon yahay magacyada mas'uuliyiinta la dilay waxa lagu kala sheegay Cabdi Santuur oo ahaa gudoomiyaha laanta Buulakuulu Jibriil Maxamed oo isna ahaa gudoomiyihii hore laantaasi iyo Carabjiis oo ahaa gudoomiyaha laanta Dabaqore ee degmada Baardheere ilaa ay haatan ma jirto faahfaahin dheeri ah oo maamulka gobolka Gado iyo sidoo kale kan degmada Baardheere ay ka bixiyeen toogashadaasi iyadoona dagaalyahanada xarakada al-shabaab ee fuliyay dilka ay goobta iskaga carareen dilka kadib dhacdadan ayaa waxa maanta sidoo kale aad looga hadalhayaa deegaanka oo cabsi amni ay soo wajahday gobolka Gado dhaca koonfurta Soomaaliya ayaa kamid ah gobolada ay wali ku xogan yihiin dagaalyahanada kooxda al-shabaab oo weerar gaadma ku qaadaya saldhigyada ciidamada dawladda iyo kuwa Jubbaland ee gobolkaasi Mareykanka ayaa si kulul uga hadlay ciidamada dawladda Soomaaliya ku daabushay gobolka Gado
golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo kulan ka yeeshay xaaladda Soomaaliya halkaas oo ergeyga gaarka ah xogayaha guud u qaabilsan Soomaaliya James Swan iyo suduwaha siyaasadda ee Mareykanka u qaabilsan golaha ammaanka ay ka jeediyeen khudbado ay kaga waramayaan xaaladda siyaasadeed tan dhaqaale iyo tan amniga dalka isku duwaha siyaasadda ee Mareykanka u qaabilsan golaha ammaanka qaramada midoobay Randy Hunter ayaa si kulul uga hadlay xaaladda gobolka Gaza iyo ciidamada dawladda federaalka ay ku daabashay magaalooyin ka tirsan gobolkaasi Randy Hunter ayaa sheegay in sanadkan 2020 oo Soomaaliya uu yahay sanad adag maadaama ay doonayso inay xal ka gaarto diin cafinta doorashooyinka qaranka iyo sidii ciidamada Soomaaliya AMISOM uga wareegi lahaayeen sugidda amniga dalkooda waxa uu sidoo kale ka hadlay khilaafka dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada Jubbaland iyo ciidanka ay xukuumadda Soomaaliya muddooyinkii dambe ku daabashay qayb ka mid ah gobolka Gedo ciidamada militariga dawladda Soomaaliya sida siyaasadeedsan lagu daadgureeyay gobolka laguna dagaalgeliyay gobolka Gedo ma ahan mid la aqbali karo waxayna taasi weecinaysaa dhaqaalihii lagu heshiiyay ee lagu talagalay howlgallada amniga ayuu yiri Randy Hunter oo ka hadlayay golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxa kale oo uu sheegay in mas'uuliyiinta ciidanka dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ay tahay waxa uu sidoo kale sheegay in mas'uuliyadda ciidanka dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ay tahay la dagaalanka al-shabaab halka isku dhac hubaysan dhexmari lahaa dhexdooda si loo xaliyo khilaafka siyaasadeed waxaan madaxweyne Farmaajo ugu baaqaynaa inuu soo afjaro duulaanka ciidanka dawladda federaalka ka wadaan gobolka Gedo isaga iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa xoog saaraan wada hadal iyo dib u heshiisiin ayuu hadalkiisa sii raaciyay waxa kale oo Hunter uu sheegay in horumar walba laga gaaro dhinacyada amniga siyaasadda dhinacafinta ay udub dhaxaad u tahay iskaashi yeeshaan dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada waxa kale oo uu sheegay in Mareykanku aad uga walaacsan yahay khilaafka u dhaxeeya dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada oo muddooyinkii dambe sii xogeystay waxayna sheegeen in xalinta arrintaasi ay kala hadleen dawladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dhanka kale waxa uu bogaadiyay dadaalada uu sheegay madaxweynaha Soomaaliya uu iskugu soo dhaweynayay dawladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada Mr. Hunter ayaa si gaar ah u carabaabay oo uu soo dhaweeyay kulankii dhawaan dhexmaray madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamada ay geysay gobolka Gedo ay sugayaan ammaanka xuduudaha dalka maalmihii u dambeeyay khilaafka u dhaxeeya dawladda iyo maamulka Jubbaland ayaa cirka isku shareeray gobolka Gedo oo kamid ah gobolada hoostaga Jubbaland ayaa gebi ahaanba Jubbaland haatan gacantiisa ka baxay kadib markii ciidamada dawladdu ay Muqdisho ay ka daabushay ay gobolkaasi tagayn markaana aan fiirino Puntland iyo Somaliland dagaal xoogan ayaa maanta ka dhex qaraxay ciidamo kala taabacsan Puntland iyo Somaliland dagaalka oo ka dhacay gobolka Sanaag warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dagaal u dhaxeeya ciidanka Somaliland iyo kuwa Puntland oo maanta ka dhacay qayb ka mid ah degmada Laasqore oo ka tirsan gobolka Sanaag ee waqooyiga Soomaaliya dagaalku muddo kooban socday ayaa waxa la sheegay in labada dhinac ay isweydaarsadeen hubka noocyadiisa kala duwan isla markaana uu jiro qasaaro wararka ayaa sheegay in dagaalku dhexmaray ciidamada ay kala wateen gudoomiyaha gobolka Sanaag ee dawlad goboleedka Puntland Ali Xuseen iyo gudoomiyaha degmada Baran ee maamulka Somaliland Maxamuud Xamuud oo yaraan hal askari ayaa ku dhintay dagaalkan iyadoo uu ku dhaawacmay mid kale kaas oo haatan ugu dabiibaya xarun caafimaad ku taala Laasqore برشات وشمال أنا برشات كل تقول كم ترى بسمعه بتكلم فنوي صار بجوز صدق لسه يقصد خبر يعني صار هذا روح الشيء وخساره مين هم بقول إنتي وبرشات كل كسرات وشمال أنا يبرشات كل كسرات وشنو بتكلم وهو إيش ما حياته واحد نصرهم بسوي هذا كبارنا قال كم بيرتاح وهذا سوق لي سوق المش حتى عادي نقول لي برشات في كل sidoo kale deegaanka ayaa inoo sheegay in wali cabsi ay ka jirto gudaha degmada isla markaana laga dareemayo dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda Somaliland iyo Puntland oo isku haya gobolada Sool iyo Sanaag ee ku yaala waqooyiga Soomaaliya ayaa marar badan ku dagaalamay deegaanada hoostaga gobolkaasi dawladda Soomaaliya ayaa gaadiid ku wareejisay maamulka Jubbaland agaasimaha xiriirka gobolada iyo hay'adaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Jaamac ayaa laba gaadiid ah oo lagu talagalay kormeerada dugsiyada ka qayb qaadashada horumarinta waxbarashada ku wareejiyay wasaaradda waxbarashada Jubbaland gaadiidkan ayaa waxay ka qayb ahaayeen 12 baabuur oo ku deeqay mashruuca iskaashiga caalamiga ah ee waxbarashada Global Partnership Education agaasimaha xiriirka gobolada iyo hay'adaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Cabdinuur Axmed Jaamac ayaa ku wareejiyay wasaaradda waxbarashada Jubbaland baabuurtan waxaana ka gudoomiyay wasiir ku xigeenka ahna ku simaha wasiirka waxbarashada Jubbaland Axmed